السلام عليكم تعالى وبركاته دمان تسول دوادا إذا مسو كوبي كرا أو حالة ير بان ربايان جع كسي جع مالمهم بلا نقصتي حالة هذا ما فينا أنا وحنا كومر والبوت هاجن بدبادين تبلشة يوعي قلنت ضد كمان كير ضد واحد جرى مان ير dad waxa jira maan kood aad u weyn waxyaabaha qaar ku dhiiran baa jira marka barnaamijka inoo share gareeya share taabta lacagta kuma fadhido waxa kaliya aan rabnaa caawinayno inaynu gacanta gelino waxa weeye ninkii Soomaaliyeed ee Dubai xaaskiisi meesha marna fiiriyad nin Soomaaliyeed baa waxa uu Dubai xaaskiisi oo ilmo u dhashay markii duubi lahaaba mise waa kii ilmaha xafaayada uga bedel la cunada u karin lahaa markii hooyo aabo u noqon lahaaba mise waa kii ceebtada banaanka ku faafin lahaa wuxuu miyaasayeen qof dumara miyaasayeen dumarku kuwii markii 1990kii uu qixi dhacay oo ragga Soomaaliyeed aabayaashan bilaa shaqo noqdeen hooyooyinkeen inay yaanyada gadi jireen dabcan saas ahaayeen haddii soo bixin rag kala de ama dumar kale laakiin dumarka hore waxay ahaayeen dumar markay dhibaato nagu dhacday oo ragga Soomaaliyeed bilaa shaqo noqdeen oo xaaladda xumaatay waxay ahaayeen dumarku kuwii waddanka sameeyay bixiyay bay ahaayeen oo caanaha noo gadeeyay bay ahaayeen oo suuqa loo fadhiyay oo yaanyada noo iibinayay oo intaas rafaad nala soo maray maanta waxa la marayaa marka nin naagtis inuu duubo marka nin baa naagtis ciyaal u dhashay halkaas duubay marka oo naag gabar kale u diray marka ninkaas nin raga ma oran karo waa khaliis makhnuud weeye waa makhnuud weeye arrinka noocaas oo kale marka waxaan u baahanahay boqol dhalinyaro ah oo ka dhigisa u baahanahay najaaso ku tufta makhnuudku ahaaday sababtu waxa weeye waxaad arkaysa waxa weeye macnaha waxaad arkayso oo aad maankaagu diiday waxa weeye inaad aragto waxyaabaha qaar macnaha aqligaagu waa diidaya wax qof bilaadan u qaadan kara maaha bal nin xaaskiisi oo ilmo u dhashay oo guriga u dhex joogta oo ilmo u haysa oo gabar yar ag hurida buu fiideo ka duubaya bal ka war hadii ahaan mid hadii la sheekaysan la iska waran marka ilaa ninkaas xaaskiisu saa yeelaya markaas waliba naag gabar kale u diray marka gabadhi kale intay damir xumaysa ka yaabtay social media soo dhigtay ragga noocaas marka hadaba rag oo nagu jira marka أنا لكن مدة أيدي شيء وحوي إذا كوا ستان دمر كوني قار حني وردمر كمحمة دمر كو إذل ودائما ويا دائما كوا دي سولي اللي جالس صاره ولا دقة ولا ترتره وما له لوجي بيلا اللي دائما بنقنيه جواد الصوماليات هدي سوى البوح انتهي هدي حالة بدن صومرته هدي حاجة إن دم وحنا جرتها سمعة كدلان أدو واحد هيكي جواد الصوماليات شرف كذا يسه هذا أدو كي الله باته إما تيد نرجو كي انتو جبر دوه جبر كلا قدر لها هم السوشيال ميديا سوق الله متيد واحد هيكي هبينك مركا إدارة أنت هبينك قليل ما أوسو جد سوي حرورت انتو كعه سوي حرورت انتو كعه كي واحد قراع وكر لها واحد هيكي هبين مركو إنه كسوق على كسر لها واحد هاي نرجع تهاي إلا ماشي على شغل وقرب حالة قربها قعمو تشربوا حسوق قعمو تشربوا حكوجو يعني أظن نرجع تهاي وحي هاي أكو عقل عليا عاو رجع دم بعاو عقل عليا رجع دم بعاو عقل عليا تصالح يربع السنة يا مركب هذا كان قبل الدوبي أنا وخضيان منه أنا كان خنيس كأ قبل الدوبي خضيان منه لكن وحين قال إنه وحوي وودده ونعكسوي sababtoo waxa u baahanaa jiilka naga dambeeya inaynu badbaadino weey ruuxan waa hooyo weey 9 bilood bay ilmo caloosh kugu soo waday 9 bilood xanuunka ay marayso iyo walaca ay marayso iyo cunada ay ka go'ayso iyo wiswiska ku dhacaya iyo dhibaatada ay marayso wallahi inta leeyo adduunka aan lagu misaali karin wallahi waa dhaartay anu tusaale yar baa caawida sinay xilli waxaa jirtay aanan ogeyn inay dumarku ay wax dhibaato amaraan لكن هبين ويلي دلني بعد اخترت وحوي سحاس كاي ما ساكو لها سالي هذا بدل تاغنو انت دلايسو هبين كاسا waxa la i hor keenay hooyada dhibaatada iga soo martay marka hooyadayda dhashay anu dhibaatada iga soo martay habeenkaas la dul keenay marka
marka ragga Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa caaw war haddaad gabar guursato oo qurbo ku guursato adaa u hooyayo adaa u aabba adaa u aqliyo adaa u xooga adaa u nina oo adaa u naaga adaa u jaariyada habeenkii oo dhan ilmaha adigu soo jeed oo subaxii iyadoo quraacda ha u kariso oo markii ay daasho ilmaha xafaayada uga bedel oo qashinka adigu ka tuur oo hadallada gabadha qalbi jabinaya ka daa hadhiina hadallada qaarkood qalbi jabinaya iyo la tirsiga warragow dumarka ka daaya haddii kale waxaanu noqonaynaa ninka hadda caawa gabadhiisa duubay ee social media bal xataa hadday kalmad xun oran lahayd dadka qaar baa u riyaaqi lahaa waxay leedahay aan reerkayga dhaqanno war isbedel aniguna waa isbedelaya maxaa ka fiicanba maxaa ka fiican war isbedel aniguna waa isbedelayaayo oo reerkayga waa dhaqanayaayo oo wixii xuma waa ka baxayaaye adiguna walaalo macaan oo xumaanta ka bax midaada kale xoog adiga kugu jira iyo xiniyaha aad leedahay maxaaskaaga u leedahay mise nin rag inaad isaga celisid iyo cadow inaad reerkaaga kaga difaactaa u leedahay mise xaaskaaga aad u xoog weynta 24 saac waqti waad u haysaa inaad ummado kale u sheekayso ma xaaskaaga u sheekayso ka farxis ma xafaayadaha ilmaha uga bedelaysid iyo adeeg yeerka u soo karinaysid weelka cunada lagu dhaqo habeenkii ee ka seexato habeen marka aad xalaysid miyaa dhibaato kugu noqotay marka iyadu marka maxay guriga ka haysaa hal maalin in ilmaha lagaaga tagay ahayd wallaahi ilaahay xaq lagu caabudan ku dhaarto hooyooyinka Soomaaliyeed waa dhiban yihiin haddana ilaaha subxaanahu qaadira qulubtooda wuxuu ku beeray wax la dhaho dulqaad wax la dhahaa ilaahay qulubtooda ku beeray marka ay noqoto xagga ilmaha marka ay noqoto inay adiga nacaska ku dulqaato marka ay noqoto marxaladaha ku soo wajaha marka ay noqoto marxaladaha iyaga soo wajaha hooyo haddaad maqasho waa badbaadiyaha ummadda iyo shacabka weeye haddaad maqasho kelmadda la dhaho hooyo ama xaas ama family haddaad maqasho waa badbaadiyaha weeye ummadda Soomaaliyeed iyo waxa weeye qoyska waa hooyada weeye ana runtii sheeg hooyo xun iyo gabar xun wallaahi baysa jirin oo bilaahi baysa jirin oo tallaahi baysa u jirin gabar xun ma jirto ana idalay gabar aan reerkayga ka adkeen male gabar hadday nin fiican hesho aan dhaqanayn male gabar hadday hesho nin ixtiraama ixtiraamin ma jirto gabar aan gurigeeda iyo ilmaheeda ka adkeen Soomaali laga heli maayo gabar walba waa gabar awood u leh inay reerkeeda iyo ninkeeda ilaashato laakiin raggi baa waxay noqdeen waxaan waxba la joogin misqaala darrad kuwa hubka wata waa rag kuwa shaqaaye waa rag kuwa wax qaribay waa rag kuwa dumarka caaye waa rag kuwa hooyooyinka u gafay waa rag kuwa duubay waa rag kuwa caaye waa rag kuwa hooyooyinka inta qurbaha yimaadeen aan wacayn waa rag kuwa $100 hooyihiisa Soomaaliya joogta aan u direen waa rag weeye isaguna uu xiranaya kaba Adidas iyo Nike uu xoog weyn yahay naa kalena iska dhaadhicinay gabar kalena iska dhaadhicinay wartan xaqa kugu leh ee ilmaha kugu dhashay ee walaashaya ee familka kula ah ee xigaal kula ah ee aad shalay reerkooda kala soo baxday iyada wanaajiso iyada xaq kugu leh anigu iyada xaq kugu laan taagana midaada kale haddaad maqli jirteen dumar Soomaaliyeed baa abuse lagu sameeyaa waa run weeye ana idalay nin raga ma ahay waa run weeye sababtoo ah ninka ragga ah maba ogaba inay gabadhu iska daa hooyo iyo aabe iska daa gabadhu waxay inay u soo baxdo inay adiga reerkaaga soo go'do wixii kaaga soo go'aysaa waa hooyo iyo aabo wixii kaaga soo go'aysaa waa walaal wixii kaaga soo go'aysaa waa qaraabo wixii kaaga soo go'aysaa saaxiibadeed wixii kaaga soo go'aysaa qabiilkeeda waxaa laga yaabaa iyadoo intaas oo dhan kaaga soo go'day inaadan $100 aad bishii siin reerkeeda u dirto halka biil yar u saarto laakiin iyadu waxa ay uurka ku dhisanaysaa waxa weeye hooyo noqo sanad walba ilmo dhal ilmahaaga ku hagaagaya ninkan isaga dulqaado hadhow ilmahaaga wax ku baranay hooyadu intaas way aqligeedu hooyadu ninka ragga ah iyadu culays kuleelay qabo midna kuma hayo si walba u bahdisho si walba aad u caydo si walba u cadaabto si walba ula ficiltanto si walba wax una u dhahdo laakiin hooyadu waxay eeganaysaa kaliya waxa waa ubadkeeda weeye inaysan ka halaabin inaysan ka xumaan inay noqdaan dhaqtarro inay noqdaan injineero inay noqdaan kuwa ummadda badbaadiya hooyadu hamigeedu kaliya waa inta ama hooyada garab istaag xaaskaagu waa hooyada weeye ama hooyada garab istaag ama hooyada lugta wanaagsan ay qaadayso ma ahay inta tii kale aad u sii qaadi lahayd aduu ka goo marka oo inta duubto social media soo dhig marka midda hooyanimo ka soo tag marka waxaad arkaysaa nin dhalinyaro ah oo gabar ula sheekaysto
intay wax dhex mareen wixii ummado kale la wadaagayay marka taas isagoo ogoleen in walaashi lagu sameeyo meesan gabar walbo Soomaaliyeed walaasha ahayn gabar walbo Soomaaliyeed meesan walaasha ahayn maada hadhow adigu gabar dheeli doonin maad albaabka garaacday albaab la mid ah adigu ugu soo garaaci doonin nafsiga gasho maan hadhow adigu sakaasoo ifbixi doonin marka waxaan nahay dad waxaan nahay ummad nooc walba u baabaaday baan xagga akhlaaqiyan baa u baabaanay xagga mustaqbaliyan baa u baabaanay xagga damiirkan u baabaanay xagga dadnimada u baabaanay xagga naxariistana u baabaanay haddana dhammaanteen waxaan ku xoog kana kulli afka muslim kana war diinta islaamku waa naxariis weeye kuwii naxariista u baahnaa u naxariista marka waa dumarka iyo carruurta nin iska celi anu xooga nin baa u leeyahay xooga nin iyo qabiil baa u leeyahay runtaa idii sheegaya laakiin anu qof dumara xoog intaa la iguma lihi qof dumara iyo carruur xoog intaa la iguma lihi arrinka marka dumarka halkaas kaga haraya ragow waxa kan waa dumar weeye waa hooyooyinkiin weeye waa walaalihiin weeye waa gabar in adeertahay weeye wax la'aan bay kugu raacday waxaysi bay kugu raacday iyadaa kugu dhaqaalaha iyadaa kugu khasnajiya iyadaa kugu ehla in adeerow nin ragaa tahay saad u garab geli lahayd ilaahay ha kuu garab galay waxaani waa adduune adiguna gabadha walaashaada saad u walaajin lahayd falankeeda gal waxaan u soo noqonayaa arrinkii ahaa oo maalmahan dhan isla dhaxmaray Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal maalmahan xogta waa aruurinay habeenadan dhan leefaf badan baan daawanay waxaan arkay niman leh Hodan Cabdiraxmaan uur beeleeda wacala hadda waa niman Soomaaliyeed weey waxa leh Hodan Cabdiraxmaan waxay leedahay waa uur wacala Hodan Cabdiraxmaan Yusuf Mursal qabin waxa ay leedahay iyo waxa ay salahan soo nin kuma qaban maxaa nin naagtiis idin ka rabtaan idinku nin naagtiis maxaa ka rabtaan mise waxa la masartan khadra silimo ma khadra la masartan de ujeedadiinu waa noocaade ujeedadiinu waa nooca weeye ujeedada aad u dalleedihiin iyo waxa maanta dhan gabadhu xaganaysaan iyo Hodan baa uur qaaday iyo Hodan Cabdiraxmaan baa Mursal isguursadeen iyo Hodan Cabdiraxmaan baa khadra silimo saaka yeeshay wax kala ma waxa la masaraysan waxa weeye gabadha khadra weeye ruuxu waa laba gabdhood wuxuu waa laba gabdhood weeye gabadhana calafkooda soo kala dhamaaday gabadhana wuu guursaday maxaa ka rabtaa marka haday uur leedahay haday soo uur leedahay maxaa badaada galiyay mise rago waxa rabtaan de ragina qaylinay waxa rabtaan booska ilaa sad ninka afar bilaahay u baneeyay booska afraadana gashaan de midinku guursanaya marka de dabcan saasa uu wadaan de karbaash sababtoo ah aqligaadu iimaankaaga ku keenay inta leef soo fadhiistana gabar wax ka sheegto oo uurkeeda wax ka sheegto oo caloosheeda wax ka sheegto oo nin qabi jira wax ka sheegto oo adigu dameer ximidaana marka kuwa Hodan ku dhagan iyo kan gabadha duubay waa isku aqli weeye kuwa marka Hodan maanta ku dhagan bari haday gabar guursanayeen oo soo duubayaan de dabcan saasana uu qabaade sababta maxaa marka hore adigu arrimaha familka iyo dadka waxay isku guursadeen ma taqaanid waxay ku kala tageen ma taqaanid waxay isku calmadeen ma taqaanid waxa laga yaabaa khadraba inay iyadu ninka iska furtay warni hore adeer Allah almeeya adeer nabad galide marka gabadhan kala guursadeen maxaa kartaan marka oo gabadha ka xaganaysa asxama isaga caydaan isaga niraga isaga ma caydaan oo isaga xagataan Mursal laakiin maxaa gabar uurkeeda iyo hoosteeda iyo caloosheeda iyo naaskeeda xawashaysan midinku guursan la marka Mursal hadda midinku guursan la marka su'aasha ay weydiiyeen meeyno ku dhagalaa dabcan way daawanayaan mise waxaan u malaynayaa ma taqaanaa waagan Yurub soo galay waxa arki jiray gabdhaha dumarka reer Yurub kulli saraawiil bay qabaan oo sax oran jireen iyo kale meeshaan rag iyo dumarka si loo kala garanayaan macnaha rag iyo dumarka waxay isku egyihiin be si loo kala garanayaan soo oran jireen ma ogta ilaa uu Soomaaliyan ka yimiyo ninkuna uu xiran yahay surweel iyo shaati gabadhuna dirac iyo xijaab ay xiran tahay marka hadda social media waxa ku soo baxaba kala garamaysid nin iyo naagba waxa macnaha waxaan wax ka hadlayba garamaysid awa alla wuxuu yahay marka adeereed ku dul qaadan minna marka inaad gabar walaasheeda ah oo shalay wiil walaalkay uu isguursadeen oo haddana ay kala tageen oo ay wiil kala guursatay inaad nagu hor caydaan aan ku dul qaadan minna marka ragina noocaas ee Hodan Cabdiraxmaan caay aan waxaan u fahmay waxa weeye Mursal oo kala anagana guurso marka saasan aan ugu fahmayaade ila si kala ma ahade dabcan sababtu waxa weeye ninka ragga ah ee aqliga u saaxiibka ee xoog leh waxyaabo badan isku dhiiran baa jira sababtu waxa weeye anu hadda inta social media soo fariisto de xataa gabar uma jawaabi karo
oo gabar macnaha lama ficiltami karo oo gabar ma caayi karo oo gabar kelmad xun ma oran karo sababtoo ah dee damiirka ragnimadaaba macnaha dee maba damiir noocaasaba iguma jiraba laakiin idinku waxaa leedihiin waxa weeye damiir liitaa leedihiin marka ma aqaan ma hormoonka dumarka ay ku badan ma sex frustration baa haya ma wax iswasay un inaad macnaha idinku ka sheekeysaan ama alla ma seertaan ba aqliyiin noqday de sababta waxa weeye hodan iyo mursal way isguursadeen hodan iyo mursal hadda isguursadeen de maxaa dhaxmaray marka waxa weeye wixii lamaanaha ilaahay isugu tala galay baa dhaxmaray uur baa ka imaanaya ilmo isku dhalayaan marka maxaa idinka rag waaweyn baa tiine maxaa gabar walaashin hoosteeda uga sheekeynaysaa iyo mursal uurka umala iyo uurka nin kale u leedahay iyo dibkaas mursal ma hay maxaa idinka maxaa anu ma fahmin marka waxaan fahmaya waxa weeye oo aad hawshaas ka daleeday waxa weeye mursalow walaalow kaalena guurso marka anu ma aqaan marka haddii dhankaasi waqooyi ay nimanku isku guursadaan iyo haddii nin macnaha uu guursan karo 3 nin iyo hal naag anu ma aqaan dhaqanka noocaas laakiin anu meesha aan ka imi iyo damiirka igu jira labada midna ma sheegayo inaan gabar ka hadlo ma isinayo khadra silimo aan ka hadli karin hodan cabdiraxmaan baa ka hadli karin laakiin halkan taas oo farsa mursal waa caaya oo waxa oranaya dayaxdal nushaa caaya oo mursal baa caaya sababtoo waa ragde anu nin ragaanahay dee rag wax baa ka sheegi karaa laakiin anu nin ragaa inaan gabar wax ka sheego damiirkaas aanu maliyay marka raggiina noocaas waxaa leeyahay adeerayaal macaan mursal iyo qadra silimo calafkoodii baa ilaahay kala dhameeyey in la isfuro waa xal in la isfuro oo bilaadanku ay kala baxaan waa xal wey ilaahay baa soo dejiyey inkastoo wax fiican ay sahay laakiin in la isfuro oo la kala tago oo wiilkii gabadha isfahmi waayaan iyagoo is xagan iyagoo is caayin iyagoo is jijiidan inay kala tagaan waa wax xal wey ilaahay baa soo dejiyey marka qadra silimo iyo mursal ilaahay baa xalkooda ku ka dhigay haddii aysan isfahmin inuu labada midba faraj khayr qabo u furo ninka marka mursala ilaahay faraj khayr qabo mareykanka iyo kanada weymiyo dawakaas naagta sharciga la guursaday khadra insha Allah wiil sharci la helaysa kalo anigu aan noqdaana marka insha Allah ta'ala nimankina maseerayo bari markaan anigu khadra guursadana maseera marka ilaa wax kale ma soo wadaan bari hadda markaan khadra aan raadinayo ciwaankeeda markaan khadra shugaansado oo guursado marka anigana ay caaya marka ilaa wax kale ma soo wadaan marka aniga markaan naagteeda caaya marka wallahi idinka ay guursanaya anigu mursal oo kale ka xishoonayo oo fanaan wax badan xeerinaya oo degaan ahaan idila degaanu maahay marka adeer wax badan ka xishootaan baa qurux badan rag baa tiin dumarka waxa tiin kuwii ceebtooda astur lahaa ee ma tiidin dumarka kuwii iyaga ku digan lahaa kuwii duuduubi lahaa ma tiidin waxa tiin kuwii dumarka intuu shaatigiisa u bixiyo kii saar lahaa baa tahay markay cagacadahay oo ay dhibaato dhacdo waxa aad tahay adigu kii kabaha u siibi lahaa oran lahaa inaad ana cadaan soconay adigu ku soco waxa tahay markii gabadha deen iyo wax loo haysto kii ka bixin lahaa baa tahay waan cidna u sheegin laakiin hadduu waxa soo baxay ragba dumarkii waa caayay marka ma fahmin waxa ba arkaysaa nin wuxuu ku leeyahay DNA loo qaado DNA maxaa adigu marka maxaa adigu DNA eegay badaasi kharash maxaa hawshaas dhaq ku galiyay mursalna dib ma haysto khadrana dib ma haysto marka adiga waxa hodanna dib ma haysatay adiga dib ku haysto muxuu tahay marka mise uurkii khadra loo wada xalada xaq u leexday uurkii khadra loo wada xaq u leexday miyaa leedii marka والله كان دمي ولا كنت ويلي ايه waa isdamiyay markay ku dheeraan maayo aad baan idin salaamaya waa madaxweynaha weeye musharaxiinta Puntland ugu tunka weynaa weeye wax badan baa waxaan u baahanahay hadii aan nahay bulshada Soomaaliyeed inay marmar isku wacyi gelino marna waa kaftan walaal horta cid iga kaftan badan male anu qabiilada dhagxintooda ma aragtay qabiilada in la dhagxiyo iyo nin madaxa in la dhagxiyo فنان إلا دقيقة أنا وهوشة لكن نيو أنا فلي بعنا أنا دمر كأي هذا يا مساكين والله دمر كأيو مساكين تأيو عروت أنا كلمات ما أوران كرام أنا قريرة يا ماركة مركا نمن جسيالتين هذا دمر كلونه بتقولي مركا أنا عايد يا روح كوفي هذا أصو حراني الله يفصل فريساني أنا فيديو يترترع مالها وريتشيا عايد ديار بقولنا لكن قبلها كريه إنه بتقوليه رجو هدي أنا قبلها نودا كرينا نودا يعني دين تما وقال طبعا أنا أقول سريع ودا قناي
أنا تمن قرصني بروح حرف صاحبك ونفع أنا تمن بو قرصني أحمد سكي وصاحبك هنا تمن بو قرصني ليمان علنا تمن ها قرص نبيلو تمن قرص أدقنا قبلهات أنا يا مركز دمر كان عاين ودودوبت ووحي كبه وحي نوبه هذانا إيسنا جواين هذا يا الله أبى سلام يا واحد الله السلام عليكم تعالى وبركاته.